waxaan nahay wadamo deris ah oo conflict of interest ay ka dhaxayso taa ayadoo laga gudbay loo daninayo ummadda Soomaaliyeed Kenya waxa loo ogolaaday inay dalka Soomaaliya soo gasho waxaan ka hadlaynaa waa arinta maanta oo shacabka Soomaaliyeed u wada dhan yahay Kenya waxa ku abdaa inaysan doonayn dawladda Soomaaliya diyaaradaheedii wafuudi soo aaday waxay ku celisay hawada waxay xirtay wasiirkii gaashaandhigga iyo waftigii la socdo baarlamaanka ayay 3 maalmood airportka ku xirtay iyadoo marmarsiyo wadhigiisa haddaan magaalada idiin sii dayno nabadgelyadiina mas'uuliyad kama nihin haddaysan nabadgelyo mas'uuliyad ka noqonayn maxay markii hore u yimaadeen horta Kismaayo u leeyihiin waxaan ka midnahay ciidamada IGAD ama UNISOM oo nabadgelyada dhowraya hadday ahaan lahayd xukuumadda hadday ahaan lahayd madaxweynaha baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa in ay diyaariyaan xukuumaddana ay soo diyaariso baarlamaankana ay horgeyso mooshin ka dhan ah in dawladda Kenya dhammaan dalka Soomaaliya ay dibadda uga baxdo bismillaahi raxmaani raxiim Soomaaliya hamidowdo Soomaaliya ha israacdo anigu war badan inaan halkaan ka sheego ma rabo maanta awalan waxaan u mahadnaqayaa yaan xamaasadu ila tagine dadka reer Leicester wadaniyiinta ka xun waxa dhacaya ee galabta halkaan isugu yimid una yimid inay shucuurtooda ku muujiyaan walaalahood la qaybsadaan dhibaatada ku dhacaysa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan halkaan u nimid inaan shucuurteena ka muujino inaan ka dagaalanno xasuuqa ba'an ee lagu hayo cudurkan qabiilka ohoona dilay aan iska dhaafno qabiil waxna soo gelin maayo wuxuu soo gelinahay male waa qarmoon uu uraya asaga goobtaana gaarsiiyay asagaan waxaan ku sameeyay asagaana gaarsiiyay Kenya noo timaado asagaana gaarsiiyay inaan socono asagaana gaarsiiyay kii gunta ahaa inuu isku day inuu gumeeyo kii goobta ahaa marka qabiilka aan dhaafno taa waa mid walaalaha meesha ku dhibaataysanna waxaan leeyahay ku kalsoonaada wadankiina adinka u haraya ee cadow uma harayo tuludgeela hor dhacantaad toban u laysaanay madalkiiniyo tagaybaan nina dhagax ku tuuraynay Soomaaliyey tooso isku tiirsaday hadbakiina taagdaranay taageera weligiinay aan siinayno oo ahaa dalkooda ummadooda shacbigooda in hortooda lagu xasuuqo in laga dhiidiyo lagana hadlo isugu yimid in la muujiyo dhibaato ka dhacday wadanka Soomaaliya oo ay sameeyeen ciidamo shisheeye oo loogu talagalay in ay ka qayb qaataan dib u dejinta Soomaaliya baadaba hawshan ay dhacday waxa loo baahan yahay oo aanu ka sugaynaa go'aan degdeg ah oo dadka Soomaaliyeed qanciyo dawladda inuu ka soo baxo dibka waan ka baxaynaa gacmaha isqabsano midnimada annagoo midaysan gacmaha isqabsano halkaas waxaa ku soo gabagabeysmay shirkii lagu qaban qaabiyay magaalada Leicester oo loogu talagalay mudaharaad looga soo horjeedo ficiladii ay ku dhaqaaqday dawladda Kenya gaar ahaan magaalada Kismaayo sidoo kaleeto dadka waxay u baaqayeen dawladda federaalka Soomaaliyeed in ay wax ka qabato si degdeg ah fariimahoodiina dhan meeshaas ay ku soo gudbiyeen aniga oo ah Maxamed Cabdullaahi Artan ka soo waramaya magaalada Leicester Somali National TV